Bismillahirrahmanirrahim. Kusoo dhawaada Somali News inuu kusoo bandhigno inta badan waxyaabaha cusub inta ayaamihii u dambeeyay waxaynu soo bandhigaynay khudaarta iyo miraha faa'iidooyinkooda oo aynu dhowr khudaar iyo dhowr mir aynu ka soo hadalnay. Maanta waxaynu si toos ah uga hadli doonaa geedka loo yaqaano ismaandhayska oo ah runtii geed aad iyo aad u muhiim badan. La socod wanaagsan insha Allah tacaala. Geedka ismaandhayska waa miro cabir ahaan la eg ukunta ama geedka zeytuunka sida ka muuqata muuqaalka ama sawirka hore. Waa miro dhanaan oo badanaa laga isticmaalo koonfurta Soomaaliya. Ismaandhaysku waxaa lagu isticmaalaa ama loo isticmaalaa waxyaabo aad iyo aad u badan ayaga oo isticmaalaan wadamo kooban gaar ahaan wadamada Latin America, wadamada qaar sida Aasiyada fog iyo wadamo farku-tiris ah oo qaaradda Afrika ku yaalo. Cunno iyo cabitaan ahaanba waa loo isticmaalaa ama waa loo adeegsadaa. Saladkana waa lagu jarjaraa inta qolofta sare laga fiiqo, lafta gudaha ku jirtana laga tuuro. Mirahan waxa uu leeyahay faa'iidooyin nafaqeed. Markii cilmi baaris lagu sameeyay, waxaa ismaandhayska aad uga buuxo maadooyinka ama maadada calciumka ama lafaha kobciso, muhiimna u ah caafimaadka wadnaha. Dalka Indonesia waxaa la aaminsan yahay in ismaandhaysku uu daawo u yahay wadne xanuunka. Ismaandhaysku waxaa ka buuxo vitamin A iyo vitamin C kuwaasoo sun saareyaal u ah jirka ama antioxidant. Faa'iidooyin kalena xambaarsan sida caafimaadka aragga, maqaarka, ciridka iyo xoogga jirka. Cilmi baaris cusub waxa ay sheegtay in ismaandhayska ay ku jirto maadada loo yaqaano phosphorus taasoo muhiim u ah ilkaha iyo lafaha jirka. Ismaandhayska waa miro ay cuni karaan dadka dhiig karka qabo maadaama aysan ku jirin cusbada loo yaqaano sodium, laakiin waa muhiim in ay cusbo ku darsan sida dadka qaar ay sameeyaan. Ismaandhaysku waxaa la arkay in xoogaa bir ah ay ku jirto loona qaadan karo ka hortagga dhiig yarida, laakiin haddii uu dhiigga kugu yar yahay waa in siyaabo kale lagula tacaalo. Ismaandhaysku waxaa kaloo ku jiro dhowr macdan oo jirka uusan ka maarmin sida vitamin B1, vitamin B2, B3, B6 iyo vitamin E, potassium, zinc, magnesium. Intaba waa macdan muhiim u ah jirka. Ismaandhaysku waxa uu hoos u dhigaa lalabada xilliga uurka, waxaana uu u roon yahay walaaca 3 sababood dartood. Number 1, dhadhankiisa. Number 2, vitamin B6 oo lalabada ka hortaga. Number 3, hoos u dhigista aashitada caloosha.